waxa ku hadlay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخيارتا واردن سلامي قلاهن كودة جرتا حلوانada sharafta la wada aqal ka tirsan marlabaadka waa idinku hambalyeynaya in wax la isweydiiyo la isabaabulo oo sida wax u jiraan laga doodo waayo waa dee xildhibaanka saaran arrimaha masiiriga ah ee guud ahaan dalweynaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaanba deegaan doorashooyinka uu xildhibaanku ka soo jeedo waxaan isleeyahay arrimaha hadda u balansan tihiin oo taagani waa waxyaabaha mararka qaar soo baxo dhaca ama dhici doona mar walba oo ay dowladnimada Soomaaliyeed sii adkaato oo sharcigu sii xoogaysto oo dastuurka dhamaystirkiisa loo baahdo in wax laga qabto waxaa haddana imanaysa kala duwanaanshaha labada fikir ah fikirka koowaad oo dhamaanshaha dhulka Soomaaliyeed ee calanka Soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda Soomaaliyeed ku astaysan tahay iyo aragtida inteena xildhibaanada ahi aynu ka duwanahay oo ah kala go'a iyo wadajirka Soomaaliya aynu kaga duwanahay walaalaheena ama dadka aan metelno waa laba fikir oo kala gedisan haddana aragtida aan qabnaa ay tahay in xal waara laga gaadho qadiyadda Somaliland oo si nabad ah looga gaadho xal waara oo cuntama uu ku dhamaado waa run 60kii markaan taariikhda dib u raacno caadifadii jibbo Soomaaliyeed oo Soomaalinimadu dhiigeena ku talaalan tahay oo Ernest Beving xogayihii arrimaha dibadda Ingiriiska dibadii haddii ay jirto dad Soomaaliyeed oo u taagnaa Soomaali weyn Soomaaliya al-Cudma ama Soomaaliya al-Kubra ama Greater Soomaaliya waa dadka deegaanada aan ka soo jeeday ayaa kow ka ahaa Soomaali kaleba waa u taagnayd dhiigna waa u hurnay nafna waa u hurnay taariikhdana waa ay ku suntan tahay laakiin haddana midnimo shuruud la'aan ah oo qaladkii dhacay waagaasi 30kii sano la wada jiray qudheedaba uu dambaabidho iyo haraati ku yeeshay bay ahayd haddana 1990kii baa caadifadeedii la yidhi dalkii baa la kala goynayaa oo Cabdiraxmaan Tuur iyo Ibraahim Megaag Samtari mas'uuliyiinta siyaasiyiinta Axmed Siiraanye niman qaaxay yidhi korneelaan ku noqonay oo SNM ahaa ayaa qori afkii dalka ku kala jaray caqligu ma talin caadifada ayaa talisay 32 sannadood maanta halkan taaganahayna iyo hirka inaga horeeya sidii u eegyahayna waa aragnaa waa xilligii caqligu shaqayn lahaa mararka qaar waxaan is raahdaa mala 40 sano yatihuna fi ard quraanka lagu sheegay waa baa idin haysto oo hadii waagi SNM la aasaasay laga soo bilaabo oo 1980kii ahayd mala 40kii sannadood waa hadda gabagabaaba joogaanba hadii 1990kii laga soo bilaabana hadda 30 sano soo dhaafo 7 sano gadaalaba waxaro malaatiyahaasa lagu sii jiraya waxay la tahay inaynu horta caadifada meel iska dhigno oo aan caqliyan u fikirno oo aan isweydiino adiga ka xildhibaan ahaan doorkaagu muxuu yahay shaqada ku taala iyo doorka aad ku yeelan kartaa maxay tahay 5 sano badh aan aniga ra'iisul wasaare ku xigeen ahaa oo marar dhowr ah arrimaha wada hadallada laga shaqeeyay ama diblomaasiyiinta ha noqdaan dalalka kala duwan ee dareeya ama ha noqoto xiriirka u dhaxeeyay Hargeysa iyo Muqdisho wax badan marar badan run ahaantii waa laga qaban lahaa oo inta dee baaxadda iyo awoodda aad leedahay aad wada hadal midhadhal ah ku geli karto laakiin had iyo jeer waxa ay cagajiidku ka jirtay dhinaca kale oo aad moodiduun malaha masaaliix shakhsi ah oo inta xilalka haysa ay eeganayso ayna danaynahayn war waxani meesha u socotaan meel dhamaadkeedu ay ka muuqdo
hirdoogli ma ahe xal hala keeno. dhibaatada markaa jirtaa waxa weeye soomaali inteedii kale highway bay saaran tahay, innagana dadka fikirkaa ku dhegan weli wadiiqay saaran yihiin. haddii aan lagu dhiiranin xal in la keenana maalinbaa arrimaha aad kolba kacaysaan ayaa uun dhacaya. aniga waxay ila tahay, waxaan xasuustaa madaxweyne farmaajo ayaa habeen aan u imid, wuxuu yiri berrito subax waxaan la ballansanahay oon la qadaynayaa maxamed cabdilaahi omar oo 2 xilo wasiirnimo waa garanaysaan ka soo qabtay Somaliland, hargeysana bajaajka looga yaqaan. waxaa soo diray muuse biixi, waxaan ka wada hadlaynaa dee arrimihii wada hadallada oo muuse uu fariimano soo diray, ergi ka socdana uu yahay. waayahay baan idhi, waa wada qadeeyeen. qadadii kadib 4 barkii galabnimo markay tahay ayuu madaxweynuhu ila soo hadlay. waxaa kaloo wacay oo uu la soo hadlay ra-iisul wasaaraha oo ahaa xasan cali khayre. 5 galabnimo ayaanu madaxtooyada ugu nimid. wuu noo waramay fariimihii uu muuse soo faray iyo wadahadaladii sida loo geli lahaa iyo sida la isugu imanayo iyo halka la isugu imanayo iyo cidda kale oo la marti qaadayo iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen. intii qadada ay ku wada jireenna telefoon baabay ku xidhiidheen toos ah madaxweyne farmaajo iyo muuse biixi oo ay arrimaha kaga hadleen. markaan anigu runtii intaan joogay iyo markaan dib usii raacayba wuu jirtay xadhigga wadahadalka ee telefoonka lagu wada hadlo ee villa Soomaaliya iyo Hargeysa ka dhexeeya. waqtiyadii uu maxamed xaaji ibraahim cigaal ahaa Allah u naxariistay madaxweynaha, dee nin weyn oo ballaaran oo maskax ballaaran oo rugcadaaya oo Soomaali u soo taliyay buu ahaa. isagaaba rogrogi jiray oo hal abuur la iman jiray. dadka Soomaaliyeedna albaabadiisa kamay xidhnayn ama telefoonkiisa kama uusan xidhnayn. waqtigii dambe Axmed Siiraaye xiriir waa jiray oo dee ragga ku xeeran iyo sidoo ku dhiso oday Soomaaliyeed oo bisil ahaa. sidee xal lagu gaari karaa iyo sidee xiriirku waa jiro oo kala warqabay. daahir la qudadiisa nin nabad sugidna ka soo shaqeeyay oo xamar xataa waxyaabaha ka dhacaya mararka qaar dowladaha ay wadaagi jireen oo kala talin jireen ayuu ahaa. niman siyaasiyiin oo diblomaasiyadda ka soo shaqeeyana ama arrimaha gudaha u joogaan ama maaliyadda iyo arrimaha dibadda ay la shaqeyn jireen. hase yeeshee intan dambe waxaad moodaa arrinkeenu inuu ku soo ururay gabaygii barkhad cas ee ahaa aan ooya albaabada ii xidha. waxaan isleeyahay taa madaxweyne farmaajo uun ma ahee madaxweynaha hadda jooga oo aan anigu isleeyahay dadka Somaliland ee weliba matala golahan hadda aydun ku midaysan tihiin nasiib weyn iyo waxay u noqotay nasiib wanaag in maanta xasan sheekh maxamuud uu madaxweyne yahay oo laga yaabee madaxweyne kale oo hawiye ah ama beelaha kale Soomaaliyeed ahi tolliimada iyo maxaan ku idhaahdaaye maanta gacanta diblomaasiyadeed iyo taageero ee uu siiyey oo ayba arrintu kasii daraan lahayd sida maanta leeyahay ma aysan dhacdeen. waxa kaloo aan isleeyahay ragga inoogu jira golaha maadaama oday Soomaaliyeed oo siyaasi madaxweyne soo noqday mar hore uu ahaa 5 sano haddana uu yahay sidaas oo kale in ay ka warqabaan oo iska warqabaan oo marka uu lagala soo xiriiro Somaliland iyo marka uu rabo arrin la dhaqaajinayaba inaanay ragga golaha inagula jira ka war la'ayn. taana iyaga malaha aydun ka wareysataan baan isleeyahay. arrintan hadda taagan ee aydun isugu imanaysaan anigu intaan xog ka ogahay dadka ahlul xal wal caqdiga oo aan la xiriiray oo aan weydiiyey waxa weeye qoraalkaas dee 4-3 erey ku qoran yihiin oo anigu aanan u arkahayn sharciyan marka indha sharci lagu fiiriyo in wax weyn ay ku qoran yihiin aan ila muuqanin oo 4 faatixo aan dhaafsiisnayn maaragtay. waxaa xaqiiqo ah intii aan la soo saarin in madaxweyne muuse biixi lagala tashaday, loo akhriyey, la isla eegay, nin xisbiga kulmiye darajo sare ka haya oo la joogay baaba uu xoogaa ka doodooday, laakiin waxba isagu kama qabin oo saasuu ku aqbalay. muhiimadda markaan dhaba galayna dagaaladii dhacay
qiyaastii dad guuto ku dhow ama 500 oo qof ku dhowaad ah oo maxaabiisa ayaa dhinacan kale laascaanood ku xiran dhaawac iyo ha noqdanba dad maxaabiis oo xoogaa malaha daryeelka maxaabiista kale Hargeysa iyo Mandheero ku xiran duruufaha xaggeer iska adag awgeed aanay helahaynin marka waxa ugu weyn hadda ku taagani waa maxaabiista sidii loo soo deyn lahaa iyo gambaleel cusub oo ah abaabul dagaal oo xagga ka socda marka aniga waxay la tahay xildhibaankii dhibka haysta waxa weeye xildhibaanka kale deegaanka kale ka soo jeeda madaxdoodii way iska warhayaan oo way iska warqabaan oo waa sheekaystaan oo waa wada hadlaan adiga xogna ma haysid arrin laga soo heshiiyey oo dhamaatay ayuun baad qayladaan ka diraysaa cid xog kugu biirinaysaana ma jirto marka Soomaalidu waxay tiraahdaa xog la helaa xal la helaayo bal horta in xog la raadiyo oo xal ayaa aniga marka koowaad ila tahay mas'uuliyiinta golaha fulinta inoogu jira iyaga tooda run ahaantii cuslaysay anigu ma qabo waxaan aaminsanahay in guhaadana laga daayo canaantana laga daayo oo laga yareeyo waayo rag laf dhabartii ay ka soo jeedeen ama matalayeen anigu waxaan ku tilmaamay dhakhtar beeshinkii uu daweyn lahaa aanu rabin in uu arko ama uu u waramo oo waxa haya u sheego ama lawyer clientkii uu matali lahaa aanu kiiskiisa uga warramayn rabana inuu matalo dhibkaasa markaa haysanaya aniga markaa isu imaatinkiinu laba qodob ayaan isleeyahay oo muhiima aad ku biirisid waa ka koobaade in qadiyada Somaliland habraaci dastuurka hadda laga doodayay uu noqdo siyaasad dawladeed qodobkaasi uu ku jiro dhameystirkiisa iyo wada hadalka dastuurkaba gunaanadkiisa in wada hadalka Somaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya u dhaxeeya qayb muhiim uu ka noqonayo qodobka marka ay isu timaadaan qodobka koowaad ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama baarlamaanka guud ahaanba aad kala hadlaysaan ay tahay in dawladdu ka howlgasho weeyo oo lagu daro sida ku soo baxo habraaca dastuurkana sida qodobkaasi uga mid noqdo laba idinka qudhadiina inuu marba waxa iman doona wax dhagaha faraha ay galisaan oo horeba way u dhacday madashu waa tii lagaga dooday oo aniga markaan joogay golaha wasiirada waa la ogaa dugta siyaasadda loo dhan yahay waa la ogaa intaasoo dhanba waa uun dood taagneed waana sii taagnaan doontaa marka aniga waxay ila tahay warbar 36 xildhibaan maxaa maamulka xiriid aydun yeelan kartaan oo loo kala xog qaadan karaa Soomaalidu waxay tiraa haday fooli timaado guda qarsiima dhamaa gabadhu wax gudaheeda ay seedigeeda iyo sodogeeda iyo ka qarisaba fooli markay timaado iga qabtaay weeye xaaladda Soomaaliland maanta waa iga qabtaay goor ay wax qarqariyaan ama yiraahdaan hebel buu telefoon kula hadlaan la oranayaa ma isarkeen marka in ama gudi iska saara ama intii noo dhamiba golaha intaan la furin ka hor hadee inaad ku arki kartaan aad sabay iyo Djibouti iyo mid ahaan xiriir la sameeyo oo warnimo yahay aynu isaragno ileen waxba inaga dhaxeeyo dhaho sidii loo wada shaqeyn lahaa iyo cid la xiriirnay hadday madaxdeena la soo xiriirayaan oo ay hadda madaxweyne waa wada hadalnay ama ra'iisul wasaarihii hawlahaas aanu ka wada hadalnay idinkana dhinaciina ka gala laakiin waxa dhacaysa iyadoo madaxweyne ama ra'iisul wasaarihi intuu telefoon kula soo hadlay oo caaw dhan ay sheekaysanayeen inay wax isla qaateen adigi aanad waxba ogeyn baad u imanaysaa dabadeedna waxdaanu lagu wargelinin waxaad noqonaysaa nin iska bilaash xaytaa ama gabadh iska bilaash xaytaa marka hortu mulil korkii lama dhaye halka dib weyn baa ka jira waxay la tahay qodobka labaad oo anagu idinku beerin lahaa waa in communication line kaas la furo oo maalin kasta waad ogtiin arrin sharciyeed ku saabsan baa idin haysata ama waraaqa ha noqoto ama passport ha noqoto ama qof wax la raadin ha noqoto ama waxbarashada wiilal iyo gabdho laga furdaaminaya ha noqoto ama xoolihii ha noqoto arrimahoodii sharciyadii kale ha noqoto maalin kasta waxun baa ka shaqeysan meeshaas ku saabsan marka waxaan oran lahaa kaasina qodobka labaad ha idin noqdo qodobka saddexaad oo anigu isleeyahay halka waa ku biirinaysaa
meeshaasi inay kala nabad gashay u baahan tahay. abaabulka dagaalee la sheegaya walaalow haddii cid la hadli karta nimankaasi ay jirto oo madaxweyne Muuse Biixi la xiriiri karta ay idinku jirto, waqti dagaal la abaabulo looma baahna. waxaa loo baahan yahay iyagu inay kala nabad galaan, iyagu inay doorasho ku kala nabad galaan, kii doonaaba ha hele oo ay doorasho qabtaan, dhaqaalaha ay ku abaabulayaan dagaalka. doorashadaa kadib waxaa looga baahan yahay beesha Isaaq inay Soomaali sahankii nabadda ee Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ee uu Soomaali oo dhan ku galaabixiyey, Soomaali inay ku galaabixiyaan, sahanka nabadda ugu baxaan Laascaanood, ku tagaan Boosaaso, ku tagaan Garoowe, ku tagaan Gaalkacyo, ku tagaan Bay iyo Bokool, ku tagaan Xamar, ku tagaan maxaan ku idhahdaa Jubbaland iyo Kismaayo ilaa Gedo, Wajeer iyo Kenya iyo dhulkaasoo dhan kusoo maraan. Soomaaliya beesha Isaaq waxay u baahan tahay Soomaaliya inay cafis weydiisato, waayo waxaan tii baa nagu dhacay. anigu taan idinku kordhin lahaa haddii kale oo maantana intood caadifadu halaysu yimaado, berrina halaysu yimaado, waxaan waa dhacayaa, wuu soo noqnoqonayaa, wax dhammaanaya ma aha. hal midho dhala oo istaraatiijig ah inaad ka shirtaan ayay aniga ila tahay, incident ama dhacda yaroo marba dhacday ee ayadaan ka shirin. arrinta kalena waxa weeyaan walaalo dhulbahante dee ehel iyo xidid iyo tol iyo walaalo iyo wiil iyo naabtiba waa la isu yahay, meelna la kala tegi maayo. sool sida loo wada degan yahay iyo sida loo kala degan yahayna waa la garanaya, degmada Buuhoodle sida loo wada degan yahayna waa la garanaya. markii doorashada lagu jiray ayaa waxoogaa Axmed Madoobe waa igu taagtaagnaayo, gudoomiye Cabdi Xaashi iyo maareeye iyagu waxoogaa la shaqeynayo. markaa waxaan ku wariye Axmed Maxamed Islaano, warniyahow Cabdi Xaashi iyo saaxiibkay maareeye ma waxaad ula shaqeynaysaad u taageersantaho aad ii dhibaysaa waxaa dhalay maxaan ku idhahdaay jidwaaq. warniyahow shidada iga daayo saaxiibow